gobolka reer muqdisho dayaxdal nurshe ayaa markii ugu horreysay waxa uu sharaxay in uu khilaaf ka dhex taagan yahay isaga iyo sidoo kale alfanaan cawaale aadan. dayaxdal nurshe oo instagram-ka qeybta my story kaga faaloonayay islamarkaana dadka fursad u siinaya in si toos ah ay usoo weydiiyaan su-aalo ku saabsan noloshiisa iyo kuwo iska caadi ah, waxaana uu isku dayay in uu ka jawaabo su-aalo tiro badan oo halkaasi lagu soo weydiiyey islamarkaana qaarkood quseeyey isaga shaqsiyadiisa iyo si guud arrimo qarsoon oo isaga ku saabsan oo ay doonayeen dadka in dibadda uu usoo saaro. su-aalo kala duwan oo uu ka jawaabay ayaa qaarkood waxaa ku jiray su-aal la xiriirtay in ay jirtay in ay isku dhaceen fanaan la yiraahdo cawaale aadan. haddaba dayaxdal nurshe ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in ay iskhilaafeen ama dagaal dhexdooda uu yaalay fanaanka weyn ee cawaale aadan, waxaana dayaxdal nurshe oo isagu siyaabo kala duwan uga jawaabaya su-aashaasi uu yiri waa sax oo dagaalkaasi waa uu jiray oo dad badan ayaana qaarkood markaasi doonaya in ay wax ka ogaadaan arrinta ku saabsan dagaalkooda sida uu hadalka u dhigay. waxaana fanaankan oo si caadaya uga jawaabaya dagaalada gaar ahaan aan iraahde khilaafka ka dhex curtay isaga iyo sidoo kale fanaankan iyo khilaafkaasi halka uu salka ku hayay iyo waxa uu khilaafkaasi inta badan quseeyey oo dadku ay doonayeen in ay fanaanku wax ka weydiiyaan. dayaxdal nurshe ayaa ku eedeeyey cawaale aadan in uu ka xaday hees uu isagu lahaa ee uu doonaya in uu qaado, taasina ay ahayd sida ay isu qabteen iyo waxa khilaafkoodii qeyb ka ahaa sida ay hadalka u dhigeen dad badan. isaga qudhiisa uu ka jawaabaya dagaalkaasi iyo waxa uu salka ku hayay. haddaba su-aashan oo ahayd mid markaasi dayaxdal nurshe markii ugu horreysay oo uu ka jawaabay ayaa noqotay mid markaasi dadku ay aada ula dhaceen qaabka fanaankan uu uga jawaabaya amuuraha ku saabsan arrinta in ay jirtay xilli ay iskhilaafsanayeen fanaanka cawaale aadan. dayaxdal nurshe ayaa su-aalo aada u tiro badan oo wax laga weydiiyay ayaan doonayaa in mid aan usoo qaato su-aalaha intooda badan. waxaa ka mid ah su-aalaha uu ka jawaabaya youtuberkee taageertaa, waxaana uu yiri midna ma daawado laakiin asad xaajo ayaan ugu ixtiraamaa buu leeyahay youtubada. sidoo kale su-aasha xigta waxa laga weydiiyey messi ama ronaldo, waxaana uu xushay oo uu sheegay inuu taageersan yahay ronaldo. su-aal kale oo la weydiiyey ayaa waxaa ahayd waxa uu qofka yiri waan guursan rabaa ninkayga suud ma siin kartaa si walaaltinimo, waxaana jawaabta dayaxdal nurshe uu yiri 5 suud a u gadaa laakiin hadday runkaa tahayba buu yiri. su-aal kaloo la weydiiyey waxaa tahay wiil akhlaaq wanaagsan edeb sharaf intaba isku darsaday keep going, waa uu jawaabay su-aashaasi. sidoo kale dayaxow hees sheeqaal ilaa hadda kaama hayna bay tiri qofkan, waxaana uu ku jawaabay ilaahayow sheeqaalnimadeena barkee waa soo wadaa buu yiri. su-aasha kale ee dayax la weydiiyey baraada meel baan kugu arkay talow xagee waaye, waayahay gurigiin ayuu yiri si kaftan su-aashaasi ugu jawaabay. dayax goormaa cayile walaalow, jawaabta uu siiyana waxay ahayd allah wuxuu yiri dhuunida nooma waayo nin calool leh star ma noqdo uu yiri. su-aasha kale waxaa la weydiiyey jaceylka sidee loo dareemaa, waxaana su-aashan ahayd mid ugu fanisaneed jawaabta uu siiyey qofkani. bal eeg wuxuu yiri love is qooq nothing more jaceylku waa qooq wax kale ma jiro. su-aal kale ayaa la weydiiyey arooskayga goormaa iishadeysa saaxib, ha degdegin weli waa yartahay buu yiri. dayaxdal nurshe oo su-aashaasi ka jawaabay. qof kale ayaa wuxuu leeyahay icafi walaalkaygiio dhowr jeer baan wax kaa sheegay but now you are my favorite singer please forgive me, waxaana uu yiri waan ku cafiyey marba haddii aad kusoo birtay kooxdeeda buu yiri. dayaxdal nurshe su-aalahaasi ayuu siyaabo kala duwan kaga falcelinayay, laakiin arrinta ugu badan ee iminka uu ka jawaabay dad badan intooda badan uu ka jaahilbiyey ayaa waxaa ahayd bal sababta ay isku qabteen fanaankii cawaale aadan la oran jiray intii uu magaalada muqdisho joogay iyo heeskaasi ciddi sameysay iyo sidoo kale ereyadaasi heeska waxyaabihii ay ahaayeen ku jiray oo uu midna isagu ka hadlin. laakiin dad badan ayaa u badinayaa inay jirtay hees cawaale aadan uu ku luuqeeyey oo uu isagu ka hor qaatay fanaankan dayaxdal nurshe cawaale ayaa ka hor qaatay heeskaasina
durbuwa youtube-ka ay ku jirtaa oo waa hees markaasi hubqaad la yiraahdo halkudhigeeda waa dameer gaari waa faras. heeskaasina waa qeyb ka mid a heesaha inta badan ay isku hayeen fanaankan cawaale aadan. isqabqabsiga dhanka fanaaniinta muddooyinka ugu dambeeyay waa ay jirtay fanaaniin tiro badan oo sidan oo kale dayaxa isku qabteen. waxaa kamid ahaa marwaan yare oo ay jirta hees labadooduba markaasi ka dhexeysay oo fanaankan uu soo horsaaray marwaan la yiraahdo. waxaana heeskaasi inta badan ka jawaabay abwaankii sameeyey oo sheegay sababta uusan dayax heeskaasi markii hore dayax u sameeyey xaaskiisii oo dumaashi ahaan ugu ixtiraamaya iyo sababta ay isku khilaafeen oo marar badan kaga hadlay dhinaca facebooka. waa abwaan xamse xadaare oo isagu ka faalooday arrintaasi iyo heeskaasi waxay ahayd. waana markii labaad oo imika dayaxdal nurshe uu ka tabanayo wax markaasi fanaanka weyn ee cawaale aadan oo leeyahay heeskeyga ayuu iga xaday anigana argoosi ayaan ku sameeyey oo waan ka argoostay. jawaabtaasi instagram-ka qeybta my story ayay ku jirtay. waana qeyb badan oo su-aalo isaga quseeyey wax looga weydiinaya islamarkaana intooda badan uu ka jawaabaye. muddooyinka ugu dambeeyana waxaa jiray heesaha inta badan fanaaniinta ay ku laqeen inkastoo dayaxdal nurshe uu ahaa fanaan markaas heese kala duwan soo saareeye dhowrkii biloodba mar. iminka waxa uu u janjeeraa waxa uu isu bedelay fanaan iyo youtuber. waxaana uu soo saaray oo la soo baxay youtube barnaamij la yiraahdo dayax show oo uu ku casuumo dadka magaca iyo miisaanka iyo sumcadda ku leh bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo isugu jira fanaaniin wariyaal dad markaasi majaajilaystayaal iyo dadyo kala duwan oo uu doonayo in uu wax ka weydiiyo arrimo kala duwan oo dadweynaha ugu soo gudbinayo. wareysigaasi dayax uu si maalinla ah ugu soo gudbinaye ama si isbuucla ah youtube-kiisa dayax. waana waxyaabaha markaasi dadku ay wax iska weydiinayeen bal fanaaniintii oo waayadan dambe xikmadoodii ay yaraatay iyo abwaanadii heesaa usoo saari jiray oo qaarkood gadoodayba maadaama ay soo shaac saarayeen fanaaniin laakiin abwaanku uusan waxba ka dhexlaynin fanaanka. inkastoo ay jirto si saaxiibnimo ah in fanaankii abwaanku xiriir saaxiibtinimo uu ka dhexeeyo abwaanka ereyada sameynayana qudhiisa lagu xuso heesaha uu soo saaro. laakiin dhanka magaca marka la eego fanaaniinta ayaa kor u kacaa oo abwaaniinta iyagu waa kuwa aan waxba ka dhexlin haddii ay noqon lahayd lacag oo youtuberada inta badan heesaha lagu faafiyo fanaaniintu iyaga ayaa leh. haddii heeskaasi 3 milyan ama dhowr milyan u gaartana youtuberka ayaa fanaanka ayaa faa'iido ku qabaa. haddii ay noqoto in isla heeskaasi ereyada uu ku tiirta cabeelay abwaanka in goob markaasi caruus amaba xaflad ama meel alaal meesha uu fanaanka tago lagu casuumo uu ka qaado still fanaanka ayaa wax ka dhexlaya. marka waa sababta waayadan aynan aada ugu badnayn fanaaniinta dhinaca heesaha oo dhowrkii sanaba mar ay soo saarayaan. inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalka subscribe saar janaalka like garee asxaabtaada la wadaag.